سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد حنو كويستاغني إلا سو غاري وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهجرون لها ونكدم بصحبه الكرام وتي مركي ويمد أبو بكر وكيري أبو بكر وحا لغاري وقت هجرة اللي إدمي كدنا أبو بكر إسوغا وحبا أنا ديهم بوحيري الصحبة يا رسول الله كاهرما يا رسول الله فرح درتي دم النبي صلى الله عليه وسلم يضو قريش أي نبي يوحى وتبع أي ساء الديدين هدنا نبي صلى الله عليه وسلم وعنين أمينة تسوى فيها وحلقوا آمنين حول بضن أو حددك إليهم بجنجر أكتيس صلاة ربي وسلام عليه كدي من علي بن طالب بوحو يقاسي الدنبايو حولها أن dadkii lahaa u celi kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam waa u dhaqaaqay markii waxa inoo soo baxay hijradan iyada ah in naf iyo maalba loo horay wax kasta ee qaali ah Suhayb daliil u ah Salma wixii soo gaaray daliil u ah waxa soo dhan daliil bay u yihiin waxa kale hadana laga qaadanayaa ama duruusta meesha ku jirta waxay tahay meel maanta maka ka fadli badan ee qofka bini aadamku aadi lahaa marka malaha nabiga marka laga soo tagay inay maka ahayd halkii uu ku dhashay uu ku soo barbaaray ay dadkiisu ay deganaayeen marka laga soo tago ee maka waxa ahayd meel aanan sahlanayn oo qulubtu ay ku xirantay faj'al afidatan min an-nasi tahwi marka la tilmaamayo oo kale oo quraanka uu tilmaamayo baytullahi marka ma sahlana iyadoo baytullahi ay tahay oo xaramkii ilaahay ay tahay oo kacbadii ilaahay ay tahay haddana waxaa loogaga dhaqaaqayaa dacwada darteeda inay dacwadan ay faafto laakiin nabiga hadduu meesha inta iska fadhiyo oo saa marka u gacmo xiran yahay oo afar degeys laga fadhiyo waxba aanu sheegi karin saxaabadiisu aanay kelmad aanay sheegi karin dacwada halkaa marka way ku diloon tahay dib baa marka soo gaaray si dacwadan xor ay u hesho ay u noqoto shimbir duulay oo haadaa ah hawadaa galay la celin karisay u noqoto وإن مالك سدعوة يكسر عن كرت قفك مسلم كأو هذا كلمة هنا ده هالك كم با إلهي لجوا عبودي كرا عبودي تانك إلهي عبودي يسد وعبادة أديك كوكو كارا إنا تكتو حديك كوكو كارا إنا سونتو حديك كوكو كارا لكن نفع الغير أي مرة بريورتي قاله دعوة واحد كم ينتهي نفع الغير ذاتك كان إيه وحلا ترى ذاتك لسي وحلا ترنا وإن مركا نفع مال بمركا الله هو وحكى الله هدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل دقائق يسوى له حتى ميشا كليه وأن آدي أدوجع الله لكن هدانا دتك إساري لهن كمان بحين بالنبي صلى الله عليه وسلم ويري وحكى له هدانا ميشا كجرة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ويسوع دقاقين إيجو إسقارينيا كدي أبو بكر وح والله اللي ويلكي يسوي في ردتك أخبارته ده نوسو دقيس مقالة محل ليه هدي إنه سو دوين هدينا لقبان ربا هدي نجور هلان ماشان مرة إنه ورتيسو دقي نينكلا عامر بن فهير اللي قام عابنا أبو بكر موليه سأهنا وحيري أرجع الناس وراء صبحي هبينكي وحي مركا تسوع الرابسيد وتسوع الرابسيد دي بيوصل لعبته الناس ليش كدي من عنها ناكل أسماء بنت أبي بكر أيضا راشين بيوكينيس مركا أرك هجرته اسكسر عما تخطيط بالله بعين النبي صلى الله عليه وسلم مركا أبو بكر بورجلي أبو بكر جديد كل وصف لها بودياري وعكلا للدياري هذا واحد الله وحي له جيسي قال له بعين يا للدياري نيكي معركتي عنها وكيني لها هوين ذي راشين كيو كيني لهاي وحكوا له الدياري وكلا اخبارتي ان لا جور هاي سيده جوجا يعني markii waxa sameysmay makaatib kala duwan oo logistics iyo akhbaarti meesha warku ka iman lahaayeen oo dhan oo ka iman lahaa warka hadaba Abu Bakar suu nabiga u jeclaa wax la qiyaasi kara ma walidaalika waxa dhacday markii socodka lagu jiro la socdaalay Abu Bakar marna nabigu ka hormaraa saacad marna uu ka daba maraa nabiga markuu wuxuu yiri Abu Bakar waa maxay marna inaad iga hormartay marna iga daba martay wixii markaas wuxuu yaa rasuulallah marna waxaan xusuustaa in lagu soo daba jiro markaasan gadaashaada maraa marna waxaan xusuustaa inuu sahn inuu sugayo oo wadada aan ku soconay inay u baahan tahay in la ogaado haddana waan ka hormaraa si u socdeen bay waxay ku yimideen godkii qaaru xiraa lagu magacaabi jiray qaarkii aan dhahay bay ku yimaadeen godkii aan dhahay والغار كيف يكون ماذا بكوضة كذب إلهي سبحانه وتعالى وحق الدري إن
ماشي مركي اللي يمد أبو بكر بحضله وحيري رسول الله هل كان أرت يجسك قلت كأن كايهر مرأة وحلا وحي مركا ماشي كجرو النظيفية وأنت وصو ما أركتي مصر يسجل جري كره وهم بقى كجري كره أبو بكر مركا صاب بحي والنبي يصير قال بيوحي رسول الله ما هذا ولي بحماه المعمى يسك دبه هذا أبو لابت كد مركي وهو صدي إنه ماشي نظيف أي تهاي أو وح دبه نبي أنو كلا كل من مركو هو صدي كد بيوحي هذا رسول الله ماشي إنه قلي قلت كابي وضع قالين إلهي سبحانه وتعالى وصادر بالله هي وصادر عار وصادر كدي من إيادا أياه halkaas cashcashkeedii ku samaysay oo waxa la wixii ku dabool lahayd ay ku dabooshay halka marka ilaahay wuxuu asturay Abu Bakar iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka labadaas ma aragtay cankabuudkaas iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kala hadana soo diray laba shimbirood ama shimbira meeshii yimid iyaguna markaas oo kale buul bay markaa ka samaysteen sida marka la tilmaamay wallahi junuudu samaawaati wal ard marka maxaa ka dhaba صح مياه إن عرعرضوا ماشي أي تمد إن شمبروها سو أي مادان بول كسم يستان طبعا يضع شيخ ناصر الدين الباني وضعيفين أيوه العرض يضع أمانة يساوي حول على هضنا ابن حجر العسقلاني ابن كثير حسن بكتل المامية مرة دي رجع وين حسن دهنا ولو هي شنكر بإذن الله سبحانه وتعالى وحنا تاريخ يسكيه هذا من كي مشركين تأها وحيسكت ضيان إن الدبجلان يعني waxay doonto ha noqotee in amaba daro life ama isagoo dhintay ama isagoo gacanta lagu hayo inuu gacanta markaa uu soo galo kadib bay waxay yiraahdeen waa in la dabagala ninka isaga ah oo la soo qabto ilaahay subhanahu wa ta'ala marka iyo wuxuu qadaray nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo Bakar godkaasi ku jiraan way soo dul istaagaan markii la soo dul istaagay kadib بوي هوس فيريان كدب بي هدنا اسكال لابتان مركز أبو بكر وحي الله رسول الله والله متكود هدو قمدي سهوس بقال لها وبن أركي لها مركز ما بال اثنين الله ثالثهما أبو بكر لا إله يسد حيه محل قاضية ومركز القرآن إليه جل وعلا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ومركز إله سبحانه وتعالى إليه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته مركا قصة مركي في سورة البراء أما التوبة مركي كهل اللي سمعناها سمركا للتلمامية هالضبا نمينك وحيدين هلا قد بطول وحي لادين قفكي سواق قبت النبي محمد قعانكو صادقة بقول هلات بوليه هالضبا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قلت له وحي كجي المدرسة دحمال الموضة عمرنا في هيرن ولا جوغي إنين كلا مشركين تكمل الدليل النقضان ولا سعودي نين لقوا مقعب عبد الله بن أريقد عبد الله بن أريقدنا نبي يقول كحيس عبد الله بن أريقد وانين لليقانة وقايدة ولا سعودي وان صوشة كرنا فينا المركي كوا صوشة أهيد عبد الله بن أريقد بعد ديارة ووضضة السنة عامر بن فهيرن وانيكي خادم كأشقيني سدح مع المركي يكون جيران كدب والنبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر أنت لا سعود تبا وحي أفكا أبارين حقا يا وضضة مركز ساحلك هالكاس مركز دقاقين سراق بن مالك ابن جعشم أو طمع وقاضي يصير بقول كان هلات إلا الشيء جعلي النبي قام يحيي سلا ياله بل وحنك كهل على الأقل نقوقف كهل لها كدب فرس كصد بقاتي فرس كيس كصد بقاتي كدب مركا الصد بدقي مركو النبي يكون وشي دوادي بفرسكي لا ترنتراضي هذا نوقعي هذا نمر لبات هذا نوقعي هذا نمر سدحات marka afraad markuu hinqaday oo arkay inuu san dhaqaaqi karin gacmuhuna ay ugu jiraan dhulka oo marka boor iyo habaas iyo siiga markiiba kacda aad moodid icsaar markuu arkay buu ogaaday shanigan inuu shani sahlan aan ahayn nabigana uu yahay maxmi nin aan lagu dhiiran karin inuu yahay ayaa markiiba intuu qeyliyay ayuu xiri suraaqana hay in yaruni kaadi kelmadu ba idinka gaarsiinay inaan idin socon dibna idin marka idin la damacsanay buu كدب أيا النبي صلى الله عليه وسلم وحكيري أبو بكر بوحكيري واحد كتر هذا نينكا محن نقرأت عنيه سراقة مركب وحكيري وحن ربا قال لي هو قاعد إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه سهلنين هل كان معجزات إنه كسر الصعدان بود ضرب سراقة بن مالك مركب وحكيري وحن ربا إنه يقرأ الكتاب وأنا شكو قالنا بلن هدي إلهي معناه كم كان يوي إنه محل الدوني وحلا ميدا
haddaba nabiga sala allahu alayh wasalam isaga oo milicsanaya in ka fog waxa markaa u muuqda mustaqbalka fog isagoo milicsanaya hadda ogow waa nin la bacsanayo waa nin lagu daba jiro waa nin madaxiisii 100 halaad la saaray waa nin wadada uu maraya xitaa inuu qof tusay mooyaan isaga keligii aanan keeni karin waa nin abubakar uu markaa u khidmaynayo waa mid caamir ibn fahir markaa caamir ibn fahira markaa uu khidmaynayo waa isagoo keligii ah oo xitaa yani bimacnaa alaab badan aanan qaadan karin keligii ah wuxuu haysta ayaan jirin wadada waxay tusi lahaa inta iyadoo saa ay tahay buu nabiga sal alay slam wuxuu leeyahay suraaqow waxaan ku weydiiyey ka waran haddaad gashatid buu yidhi ninka kisra la leeyahay suwaartiisii iyo gacmagashigiisii haddii lagu keeno iyo wax alla wixii dahaba uu haysta haddii lagu keeno ka waran bimacnaa arrinkaa dabcan nabiga sal slam markuu leeyahay mustaqbalka waa mustaqbal fog haddii wuxuu ay doros ku salaysan yihiinna waxaa laga yaabaa sax iyo qaladba inay noqdaan laakiin waa cala min calaami nubuwatihi sala allahu alayh wasalam inuu yidhahdo mustaqbalkaa fog ee aad iyo aad u shisheeya inuu markii nabiga sal slam uu milicsado salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa kaloo meesha ka muuqata nabiga inuu tilmaamay inuu fatxi mubiina iman doono inay ummaddan u makansan doonto in ay gaari doonto halkii ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay inuu diinka kan uu kor noqon doono huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu cala diini kullihi inay dhici doonto taasuu nabiga tilmaamay in ilaahay ballantii uu nabiga uu ka qaadana in allaha laa yukhlifu almiicaad inuusan guub yeelin baajinin oona ka bixinna waa la tilmaamay waxaa dhacda marka ilaahay subxaana wa tacala wuxuu qadaray zamankii cumar bnu khadaab ayaa cumar bnu khadaab oo gacanta ku sida wixii nabiga uu u ballan qaaday suraaqa bin maalik oo suwaartii kisra ah isagoo gacanta ku sida uu yidhi aawa ninkii suraaqa ahaa ila nabigaa ballan ka qaaday markaasuu u geliyey wixii uu ka soo qaaday halkaa marka waxaa ka muuqata yani bimacnaa nabiga sal alay slam xaq waxa uu waday xaq inay ahayd xaqa uu wadan inuu yaqiinsanaa shakina aanu kaga jirin maalinuuna amaysaan noqon weydaa amay nambarada isku toosi waay nabiga ma soo gelin sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo meesha ka muuqata haddana nabiga sal allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa in asbaabta ay mareen diyaarad looma keenin miig kaxaya looma keenin malag duulya looma keenin asbaabtaa la maraya bimacnaa waa maxay diintan si nusrigeeda loo gaaro dhib walba in la maro laakiin haddaan dhahno ilaahay subxana wa tacala ummadda muxuu u gargaari waaye sariiraha aanu jiifno ilaahay subxaana wa tacala muxuu wax noo siin waaye inagoo iska hurudna ilaahay subxaana wa tacala muxuu horumarka ummaddan ay gaareen oo dadka tiknolojiyada maanta la gaaray maxay dadka muslimiinta u haysan waaye annagoo iska jiifna aan rabno mobilkan qaadanay adeegsanayna iyo microfonkan isticmaalayna ee gaarigeena inuu nin kale noo soo sameeyo muslim aanan ahayn taa horumar laguma gaaray asbaabta waa in la maro muslim baan ahay macnaheeda maaha that you get granted everything inaad horay markiiba gacanta ku dhigaysa macnaheeda maaha laakiin waddada waa inaad martaa waa inaad waddadii aad martaa maxaa nabiga sal alla alay wasalam waqti uu kaga baahi badan yahay maanta jirta inuu waddada uu maro 450 kilomitir uu jaro masas baa ka soo bixi kara waraabaa ka soo bixi kara libax baa ka soo horbixi kara dadka isagu ku daba jira qaban kara ila nin 100 halaad loo sheegaa meeshii daba taagan wax kastaa dhici kara despite all that iyadoo ay jirta nabiga sal allahu alayh wasalam wuxuu maray asbaabtii buu qaatay asbaabta marka waa daruuri si dadku marka ay horumar u gaaraan qofka marka rabo hadduu leeyahay waxbaan baranaya asbaabtu waa inuu la yimaado inuu dhaqaaqo oo jaamacaddii tago iskuulkii taga laakiin anoo iska jiifa ayaan raba yaa rabbi juuni dahab oo markaana albaabka markiiba bugha ku soo dhaho kadibna aan intaan doono aan kala baxo macnaheeda maaha nabiga sal slam intuu waddada u marayay mucjizaad baa dhacay barakadiisii waxay u muuqatay haweeneydii umu macbad alkhuzaciya markuu iyagu uu ku yimid uu martisoor u weydiisay langaajaa jirta haraad baa jira dhibaa jira oon baa jira ayaa dabcan waxay tiri sanad abaareed baa lagu jira waxna ma hayno laakiin hashan iyadu gurtay ee weyda ah bimacnaa ri'dan aan dhehe iyadu gurtay ee weyda un baanu haynaa waxna marka waxaana marka oo meeshii yeel markaa ma laha nabiga sal alla alay wasalam markiiba dacigeedii ayuu masaxay kadibna way godlatay kadibna way darartay markii waa tii haruurkii lala soo orday kadibna markii haruubka la keenay kadib waatan caanihii markaa xoortii oo markiiba aad arkaysid ilaahay subxaana wa tacala suu u barakeeyey nabiga ilaa uu inta ka cabay oo abubakar uu cabay intii meesha joogtay markay cabeen kadib oo weel laga buuxsaday kadib waatuu nabiga sal alla alay slam iska dhaqaaqay markuu dhaqaaqay kadibba umi macbad odageydiiba uga sheekaynaysa oo leedahay maanta waxaa noo yimid nin sidaas iyo sidaa ah sifadiisu ay sidaa tahay
markii ay u warantay kadib buu wuxuu wallahi inni la araahu saahiba quraysh alladhi tatlubuhu waxaan u maleynayaa inuu yahay ama uu yahay ninka quraysh ay raadinaysa ninka inuu yahay haddaba nabiga sallallahu alayhi wasallam wadada waxaa hagay ninka lagu magacaabo Abdullah ibn Urayqid Amr ibn Fihir khadimkiina uu la socdaa ama meeshuu joogay mise uu soo raacay waa mas'ala kale isaga Abu Bakr baa socda ninkii daliilka ah gaadka wuxuu wadaba wuxuu ku soo shubay xagga iyo quba oo ah magaalada المدينة المنورة دولت كذا مركا كتال هلكا مركا النبي يقول يمد بشي ربيع الأول لبي تمن كذا مال سنين وأنا ماشى تاريخ الإسلامي ويكب لعبتوي هالكاس حرب مركا أنت أنا درسي يكبحن إن المدينة المنورة إن أن افتي منه المدينة المنورة ماشى اللي أيدتكم يمادين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجر كيكدكتان xaaladeeda bulshadeed socialka ah xaaladeeda dhaqaale xaaladeeda siyaasadeed xaaladeeda geography demografiyadeeda horta inaan fahamnaan yaa degan dadka degan maxay yihiin goorma yimaadeen maxaa ka jira maxaa dhaqaale oo ka jira dadku say u nool yihiin maxaa diin oo ka jira waxay taariikhdu aad iyo aad u xoojisaa in yahuudda badankeed say u badan yihiin الجزيرة العربية الدقي الجزيرة العربية وككل كلية هذا كهل ما عرفتي مكي مدينة كهل الجزيرة العربية يهودي دكتي جارهان يهودي دكتي المدينة المنورة إن هلك أي تجين قرني كواد ميلادية تاسي تاريخ التلمامسة ولذلك دكتور إسرائيل ليفنسوس وحط ليه مركي دجالكي دحمري يهود الرومان كسنة كي تضباطنك markii uu dhacay dagaalku gabagabadiisa uu ahaa in la kharibo dhulka Falastiin oo dhan la burburiyo haykalkii Baytul Maqdis la burburiyay oo yahuudu saa ugu dhax baaheen caalamka oo meel walba ay tageen ayaa koox yahuuda kamid waan cadad aan yareen baa waxay soo aadeen buu xagga dhulka carabta isada iyada ama xadadka sida taariikhiga waxaa ka hadlaya nin taariikhiyahana oo isagu yahuudi ah ee la dhihi jiray Yusufus waana nin goobjoog ah dagaalada Roomaanka iyo yahuudda markaa dhex mariyay goobjoog buu ahaa wadaalka masaadirta carabigan way xoojinaysaa taa horta kow marka dhowr facts baa marka tilmaamayna markaan Madiina ka hadleen fact number 1 ama xaqiiqda koowaad meel ku xariiqo waxaan leenahay kow nimanka yahuudda ah waxay saan dhigeen wadamada carabta gaar ahaan Al-Madiina Munawwara qarnigii koowaad ee miilaadiga ah kadib markii ay ku soo jabeen dagaalkii dhex maray iyaga iyo Roomaanka bilaad Falastiin la burburiyay Baytul Maqdis markaa la burburiyay xaqiiqda labaad aan raba inaad dhigta ku haysaan ama aydan halmaamin waxay tahay wayna lagu soo noqon doontaa Madiina waxaa deganaa saddex qabiil oo waaweyn oo yahuuda qabiilka lagu magacaabo Banu Qinqaac qabiilka lagu magacaabo Banu Nadiir qabiilka lagu magacaabo Banu Qurayda طبعا reer Banu Qinqaac يعني إلا يوحى الله قلت الماما إلا تضرب بقول أو نين أو دجاليهنا أي مركها ماشي وجوي راب النظير نسيت سكر تضرب بقول أو نين أو دجاليهنا راب قريدنا تضرب بقول إلى سجال بقول بالغش يا طبعا مركها لو أوري عدد كإلا لبكون نين أن سهلين يا ماشي وجوي وحكلا أيضا حقيقة سدحات كدر ستها علاقات كدحية قبائل كاسو إن هاين علاقات آدية دحن يجا آدية سجحهما ولذلك إنك هذا إنه ورمي دكتور إسرائيل وحليه هاي دجال بروح ودح مري أما عداوة كدحية سراب بنو قينقاع هي قبائل كأنتو ذك الواقوة وبنو قريظة إي بنو النضير لبعض قبيل أنت يعني عداوة كدحية بنو قينقاع ومال تاجن إي بنو النضير إيو بني قريدة waxaa ka dhaxeeya dagaal aad iyo aad u baahan yani macna cadaawad aad iyo aad u daran ba ka dhaxeysay maxaa yeelay markii dagaal baa wuxuu ka dhax dagaalkii Bucath markuu dhacay ka soo hadlayna Aws iyo Khazraj reer Banu Qinqaac waxay la safteen Khazraj bay la safteen maalintii Bucath waatii qaliyaha kalena kuwa kale ay la safteen maxaa dhacay marka iyadoo reer Banu Nadiir iyo reer Banu Qurayda oo isbiirsaday baa waxa ay ma aragtay ay darbo culus gaarsiiyeen nimankii reer Banu Qinqaac inkastoo dagaalka laga heshiiyay oo qof kasta meesha ku dhintay fidiisa la bixiyay quraankan uu ka hadlaya وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. مركو القرآن كو تلمامي مسألة صالة تلمامي فاكتيغا أما حقيقة أفرادنا ميل كدرسو وحي تهيكو أما أفراد waxa ay deganaayeen magaalooyin yaryar oo Madiina Munawwara kamid ah ama tuulooyin yaryar iga dheh Banu Qinqaac iyagu waxay deganaayeen bartanka Madiina Munawwara meel gaar ah ay deganaayeen kadib markii laga saaray oo Banu Nadiir iyo Banu Qurayda intay isbiirsadeen oo isbahaysteen markay ka saareen bay waxay u saareen xagga iyo duleedka Madiina Munawwara راب النظير يقولون وحيد دجناين ماشي العالية لكم مع بطحان هل كاسي دجناين وحي أجرت الله إلا 7 ميل بمدينة أجرتها وحنا نقول المركة تولى يضو باره زرع يودادو بدين بنو قريظة يقول حيد دجناين منطقة لكم مع مهزور بيت دجناين وأيضا حاجة إيه كوفرتها المدينة المنورة حقيقة سنوات نمن كيهود وحي هندد حضارة له والبحنمة له dhufeysyo aad u culus oo la soo dhex jibaaxi karin bay halka ay deganaayeen meeshaas ay deganaayeen ma ayan lahayn dawlad ma samaysan xukuumo ma samaysan laakiin waxay hoos imanayeen nimanka ru'asaa al-qabaa'il ma aragtay odayaasha qabiilada carab ay hoos imanayeen iyaga marka waxay siin jireen canshuur halkaas si marka loo difaaco laakiin iyagu waxay lahayn jireen oday ay talada kaga dambeeyaan oo ka qabiila laakiin madax ma samaysan xukuumad gaar ah mustaqil marka ma samaysan xaqiiqada lixaad nimankan yahuudda waxay ahaan dad ahlu diina oo macna cilmi leh oo aqoon u leh baan ula jeedaa diimaha iyo sharaa'icda madaaris bay lahaan jireen oo diinta lagu dhigo ahkaamta shariicada lagu dhigo taariikhdooda ay kaga hadlaan ilmahooda halka bay geeyaan شعائرتي الدينية هالكاسي مركا كبرتان ماشي وحلو مجا المدارس كلمة المدارس ماشي كتمد ود حقيقة التضاد كدر سنة يسوي حيتهاي نمكا كان شريعات كاس أما تشريعات كاس يقينين قارنا كتبتي بكقاتين قارنا وحي كلا أحبحين وحا أوري نمكي أضياشو ذاها أحبارت أها أي مركا كوريين عيد قارنا ويل هايان وحتى وأتن لتلمامو معلومة قارنا ويسوي من جنسية يوم عاشوراء ونوع من ضد حديث المركة أي موجسي قدر كسديدات بحوية لمن كان يهودا ماشي مركة دجنا كما دونين لمن كان عربت ماشي دجنا يعني بمعنى وحي كجدونايان أنكلية إني عقيدة داس أي سوق جارت التوحيد كأ حلال أي حرام أي كلا ساري جيرين لكن وحنا ردنكم عمل فلجين ونوع من ضنطة قدر كسجالات بحوية nimanka yahuudda akhlaaqtii ugu xumayd meesha ugu xun bay ka gaareen akhlaaq xumo yani bimacnaa dad waxay ahaayeen halkii ay diintooda ku camal fali lahaayeen iyo tawxiidka u soo degay dad ka shaqaystay ahaayeen sixirka iyo in raashin dadka loo sumeeyo iyo hadallo isdhaafsan oo markaa oo wada tooriyeysan in la adeegsado oo dadka lagu dhaga hadlo waliba quraanku uu tilmaamay tacaaliimta diiniga tashriica ee u soo degay ma yan ku camal faline واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان آيات دا waxay ka hadashay inay raaceen sixirkii marka ma aragtay Sulaymaan waqtiisii marka la soo dajiyay waliyaal wuxuu tilmaamayaa nin isagu mar walba weerar ku ah dadka muslimiinta orientalist ah ee yahuudi ah aadna wuxuu ugu qoray ma aragtay judaismka ee lagu magacaabo Margiliot oo islaamka isagu aad u weeraray ayuu marka kan si xaqiiqo intuu hadlay wuxuu yiri kana haula al-yahud bari'ina fi fann as-sihr نمك يهود نمك وحي أهايان مال سرك جاري سحرك وكانوا يفضلون أسلحة الفن الأسود على القتال السافر وحين جعليان بيري هبك كان مضو سحرك قف هوس إن مركا لا يقنجيري ولا سحره أي كجعليان ضيال بإن جلان ما جعلينه والمبارزة في ساحة الحرب ضيال إن كوجي ما الجماعة لك قفك يبقى ويان هوس بسحر بقى مركا الوقت تاريخ جري وأنا إيمان دونتا غزوة خيبر مركا اللي جارو النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسكت ضيان إنه سحران أو صن وجود ضران قرب كي يعوني يوحي ماشى كدعي براء بشر ابن البراء ابن معرور إنه كل انتوا ونوع من ضد بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الله إحنا أديك سنجري وحكم إذا مركو إله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا النبي يقول كل يجي راعنا
كلمة داس وكلمة حن مركا اللغة دوضة الأيغو أفلقادانا انت كلمة دي يراهدان باي هوسك قص للجرين لكن ظاهر كده كلمة دو حقوم مغضى نقور هاي إلي إليهن أو كلا لكن أرجو سيدا معها والنبي يوحي الربان إنه يراهدان جهلنا كل شيغان نعسنمنا كل شيغان مكسنمنا كل شيغان ولذلك راعنا من الرعونة بيكتي من ألف تن وألف مد الصوت بالو أديك سيد ولذلك وحدي عجز حتى مركي النبي سواء مران واتني ليه جرين السام عليك السام وبمعنى جيري دوشا لها هاتو مركا قفكي كلمة دقيس وحي مودة السلام عليكم إن هذا الكي إصلاح فينيا وانا بدنا أنا مالها مقالة أيا لقوي قانا هذا اللي دوام مريئيو إيديماتيكلي فيجراتيفلي إن الله هدلقه هذا كقفك الجوق اللي عيل الجود ده هدلقيه شغل كاس ما يقان عن ذاتك ميجا دجن أما ذاتك بدودا ما يقان سعد انتو كوهري ما ذوح كله لا كلها لكن هذا اللي دوام مريئيو اللي يسكت ده هدل يهود وباتقان ومركا عايشة إلى يا رسول الله بحي كليهن ميادا مقلين مركا وسيري محن نقول جواب ميادا مقلين أدنى وحكلا هذا كعقدا حقيقة كلا تكون درسين وحي تهاي نمن waxay ahaayeen jinsiga iyo waxa ma aragtay waxa la wixii fool xumaa dacaarada iyo zinada iyo dumarka iyo kuwa ku mashquulay ahaayeen nimankan marka tacaaliin bay lahaayeen iyo sharci bay lahaayeen wixii intay xagga soo dhigeen bay waxay ku bedeshteen sixir bay waxay ku bedeshteen maxay dumar iyo laga biic mushtari walaalika arag dhacdadii darayd ee ka dhacday suuqii bani qinqaac haweeney muslimada haweeney carabiyada ayaa waxa ay u timid nin dahab la ah oo saa'iqa oo mayman la af Soomaaliya lagu yiraahdo nin mayman la dahab ka sameeyay kadib intii ay fadhiday oo wax gorgorinaysay oo ila hadlaysay ba ninkii saa'iqa meesha joogo wuxuu maradeedii buu intuu darafka hoose intuu soo qaado markaa kor ugu xiray taban marka marada qaybteeda dambe kor la soo qaado garabka dusha laga saaro markay istirikac bay cawradeeda ay muuqato halkaas markaa ku qosqosleen waatii nin carab ah oo isheyn waa intuu yimid oo muslimiinta kamid aan dhahay ayuu markaa ninkii uu dilay markuu dilay kadib bay iyaguna markaa ninkii haddana dagaal ku qaadeen halkaa marka waxaa ka bilowday dagaal kale xaqiiqada waxa ay tahay quraankan uu noo soo xigtay mucaamalaadkooda dhan waa dad businessman bay ahaayeen laakiin all transactions wax alla wixii mucaamala ribay ku salaysnayd waxay ka faa'iideysteen madiino waxay ahayd dhul beeraad ninka beeralayda ahna wax kaasha ma hayo wuxuu sugay ilaa laga gaaro mawsimkii markaa maxsuulka uu soo bixi lahaa ilaa beertu ay ka bislaan lahayd marka wuxuu u baahay lacag inuu hormarsado halkaasi marka ka faa'iideysteen dadka ribay saaran jireen wadan quraanka uu leeyahay jalla wa ala uu tilmaamayo wa aqdimu riba waxyaabaha ilaahay ku lacnada waxa kamid ah ribada ay qaadan jireen waxa kale haddana kaaga daran rahan waxay weydiisan jireen rahan in looga dhigo dumarka in rahan looga dhigo ilan deposit baa loo baahay markaad wax qaadatay iyo ciyaalka waliyalika kacab ibn al-ashraf an-nadari قصة ما قصة صحة الإمام البخاري ورينيو محمد المسلمة يا وحو يري ني وح نهر مري وحسوس إلا بسوس وحنا نصيب أما با نهر مري أنت أصو وسقي مركز وحو يري طبعا رهان إسية واي هاي مركز يري محان كوهر مرينا محان رهان كاقا دينا محان دي بوس كاقا دينا مركز وحو يري دو مركينا مركز يري سيال صورة قال كنت هاي إن دو مركينا أديك دي بوسي أهان كوسي إنو أما الرهان أكتاد وغاتك أضو عرب نيكا أقول قروح لبضان أتاه في رواية هاي ويلاشيني كان مركز يحيي هذا سيسور تقال كنت هاي إنان الماء أندالي إن يروا مركز مسجأ إن آن مركز الرهان أن ديبوست ماشا ودقنا صار بري الغوشة كيسنا لديه مايو كوان واكوي شالي إنتا الله سيستي هذا أدوان تنبان هنا نقلوري هل كان مركز حكم وقت مركز عرب أو غير بدنا أو آد جلاسة تشجود آد دوسري أو هنا صب بدنا markii la yiraahdo kaale haweeneyda meesha keen waxaan ku siinayaa ma aragtay in yaro 2 kiilo bur baan ku siinayaa iyo daqiiqa kadibna iyada heblaha ila joogto ama ilma aad dhashay bimaana waxay dadka ka taaban jireen meelaha khatarta xaqiiqada kale waxaad ku darsataa haddana suuqa dhan iyaga gacanta ku hayay غناهودuna غنا aad u sareeyo ayuu ahaa wax walba iyaga gacanta ku hayay nufuudka maaliga iyaga hay iqsaadka iyaga hay iyaga kala socodsiin wax walbaba waliyalika heer waxay gaareen xitaa sida uu tilmaamayo ninka la leeyahay Olsi Orally markuu qoray kitaab lagu al-Arab qabla Muhammad the Arabs before advent of Muhammad markuu tilmaamayo buuga wuxuu ku tilmaamay hadal ah wuxuu yiri nimanka calaaqadooda aad bay u liidatay buu yiri nimanka calaaqadooda ay la lahaayeen nimanka badowga ah badow markuu leeyahay Arabtu tilmaamaya aad bay u liibatay yuhuud waxay u dhaqmayeen buu yiri si dad mustacmiriin ah qarnigii toddobaad يعني بمعنى
dhulkoodii dhulbeereed bay lahaayeen waa ay sii fidiyeen ilaa ay gaareen meeshii qolyaha kan xoolahooda ay ku foofsanayeen ay ku daaqsanayeen adigu marka masracoodii intay dhaafeen marcahoodii u dhaafeen halkii beerihii intay dhaafeen dhulkoo dhan ba iyaga marka isku ballaariyey waxaa kaloo haddana meesha jirta xiriirka ay la lahaayeen aws iyo khasraj wuxuu ahaa xiriir ku salaysan interest ku salaysan walidaalika dagaaladii dhex maray aws iyo khasraj mar kastoo isku dhacaan waxaa ka dambeeyay nimanka yahuudda maxaa yeelay farriq tasud siyaasaddaasi isticmaal divide and rule bimacnaa dadka marka la kala qaybiyo adigu wax maamuli kartaa qaybi oo marka xukunkaas systemkaasi marka ku samayn jireen ama ula dhaqmi jireen nacfi bay ahayd kuwan bay lacag siinayaan kuwan bay wax u keenayaan kuwan bar u keenayaan labadaa qabaa'il marka iyagoo isku mashquulaya waana halka ugu dhibta badan marka meesha lagaa soo galo waa dhibteeday leedahay waxaa kaloo iyadana xaqiiqda ah nimanka maadaama ay dhul carbeed ay deganaayeen haddana luqadii alratana alcibriya yani bimacnaa pronunciationkoodu ma ahayn mid carabiya oo pura ma ahayn oo waxaa ka muuqday xuruuf waxaa jirta aanay kari karin baa jira xuruuf waxaa jirta aanay kari karin baa jira oo hadday noqon lahayd shiinki hadday noqon lahayd xadii haddii ay noqon lahayd way ka muuqata markuu ninkii yahuudiga uu hadlayay markay meesha ay joogeen waxaa kaloo iyadana jirta in la tilmaamo ay tahay jaanibka diiniga dacwiga nimanka yahuudda halkaa waxaa ku dhaafay fursad weyn baa ku dhaaftay dad ahlu diinay ahayd monotheism diin ibraahimiya bay haysteen oo markaa oo usuusheeda ay haysteen waxay ahayd haddii maanta ay ku dhaqaaqi lahaayeen oo dadka u sheegi lahaayeen carab oo shirkiyaadka ku jiro asnaamta leh hadday ka sixi lahaayeen wuxuun bay ahaan laakiin maxaa u diiday waa midoo kolley maaha iyagu ahlu dacwo maaha waa midda ugu horeysa waa midda labaad waxay ahaan dad maadada aad iyo aad ugu tarax tegey waa midda saddexaadoo diintooda waxay aaminsan yihiin inaan qof kale aanu soo geli karin waxay kaloo aaminsan yihiin kutubtooda waxaa ku dhigan qofka inuusan yahuudi noqon karin haddaanay hooyadii aanay ahayn hooyadii haddaanay yahuud aanay ahayn yahuudi ma noqon karo marka diinta yahuudiga not like sida christianityga kale lama soo galo not like sida islaamka kale lama soo galo laakiin waa diin iyadoo kaliya u owdan saa darteed iyaga dad kale uma ogoleen inay soo galaan dad kale uma ogoleen walidaalika markii maadada ay ku mashquuleen walidaalika markuu tilmaamayo ismaaciil markuu tilmaamayo kitaabkiisii uu kaga hadlayay adyaanta wuxuu tilmaamay wuxuu leeyahay diintoodii waxaaba ku soo hara un kaliya aliimaanu billahina shaqa kuma leh tawxiidna lagama hadlo howlo kale galeen baab kale galeen marka aanu markaa diyaar loo ahayn waxay tiri gabadhii maryam jamiila la dhihi jiray yahuudiyada ahayd imriikiyana ahayd kadibna islaamka soo gasho magaca la baxday waxay tiri tama alikhlaadu ila alraaxati walinqimaasi fi lkasbi walmaciishati kama hiya طبيعة اليهود إننا وحنا نقلنا بيتر مركي دعوة ولا ضيعة مركي كان ليس وحيتر الدنيا نسسيني راحة indulgence الدنيا اللي رياضة وما أنت دولار الوضرة مركي إننا نقطي waxay noqotay xaaladani xaalad yahuud oo kale dacwada halkaas ku dayacantay waliyalika dadka carabta ah ma jirin qof diintooda kale waxa jiray la xaalad tilmaama aws iyo khasrad ka soo jeeda waxa laga yaabaa inuu jiro midun isagoo diinta intuu jeclaa iska galay laakiin yahuud intay dacwo u sheegeen ma gelin amaba maadaama ay xidid ay noqdeen halkaas ay diintu markaa kaga timid amaba inuu ku soo dhex barbaaray bii'adaas ama deegaanka inuu joogo wal insaan min bii'ati saddexdaas sabab baa dhici jirtay laakiin dacwo ay yahuudu ay qaaday oo ay dad intay diin ugu sheegtay oo nin carab oo yahuudi ku noqday lama hayo bal waxaa la tilmaamaa ninkan taajirka yahuudiga ah gabyaagana hadda aan ka soo hadlaynay kacb ibn ashraf la yiraahdo waa nadari asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa qabiila tayyib ka soo jeeda asal ahaan aabihi baa wuxuu ka guursaday banu nadiir oo qabaa'ilkii saddexda aan hadda tilmaan mid ka mid ah kadib kacb ibn ashraf yahuudi isagoo yahuudi oo mutaxamis halka marka ku barbaaray marka ibn hisham markuu tilmaamay wuxuu leeyahay ninkan asal ahaan tayyib ka soo jeeda laakiin hooyadii waxay ka soo jeegtaa banu nadiir marka yahuudnimada halkee lagu tiirinaya maadaama hooyadii ay tahay yahuudiyad markaasuu qofka noqon karaa yahuudi uu noqon karaa macnaha walidaalika waxaa kaloo haddana jiray nimanka carabta ah diin ahaan uma raaci jirin laakiin sibay markaa ugu ta'afursanaayeen nimankan yahuudda walidaalika waxaa dhici jirtay haddii nin carabihi amaba nin carabi ah intuu walad u dhasho bimacnaa amaba uu ka dhinto waana dhici jirtay dad badanoo intay oolaad ka saqiiraan oo markaa ay iyagoo yaryar ay ka dhintaan nadar buu geli jiray wuxuu dhihi jiray haddii waladkan aan dhali doono uu ii noolaado yahuudi baan ka dhigaya marka waxaa jiray intaasoo cadad aan yarayn ayaa jiray oo carabta ka mid a oo yahuudiyada galay can hada ariiq laakiin can dacwati kuma gelin ولذلك الإمام أبو داود محو ورينيا حديث ابن عباس
wuxuu yidhi haweenaydu hadday noqoto mid iyadu ilmo ay u raagi waayaan wax kastaba ay ka saqiirayaan ayay nadar geli jirtay waxay dhihi jirtay haddii walad ii baaqi noqdo oo aan dhalo bimacnaa yahuudi baan ka dhigaya kadib awlaad fara badan oo reer Bani Nadiir dhex jooga ayaa jiray oo noocaas marka ku yimid laakiin lama hayo qof oo nin yahuudi intay diina u sheegeen kaalka diinka markaa galay walaalkii marka reer Bani Nadiir la yiri meesha ka dhaqaaqeen oo la raray waxa ku jiray abnaa al-ansaar baa ku jiray ilma ay dhaleen ansaar waxay yiraan awlaadina waan ka xaysanayna kadib waata ilaahay u leeyahay la ikraha fi diin qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy marka tilmaamay halka marka waxaan ka qaadanaynaa kow haddii ilaahay intuu kugu sharfo tawxiidka ka run sheegi weyd hadduu ilaahay diin intuu kugu sharfo diinta ka run sheegi weyd hadduu ilaahay intuu tashriic ku siiyo tashriicaad fulin weyd oo qofkii uu intaba uu ku bedesho maadiyad iyo materialism uu ku bedesho adduunyo wax lamid hadduu ku bedesho ilaahay subxaanahu wa ta'ala yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum dacwada haddii la gacan bidixayana taasoo kale u dambeynayso ummadahan inaga naga horreeyay asxaabu diin bay ahaayeen innagoo kale waxyi baa u soo degay innagoo kale rasuul baa loo soo diray laakiin marka dacwada la gacan bidixeeyo oo xagga inta la dhigo oo meesha lagu baarkin gareeyo adduun marka la daba galo intii nimanka u dambeysay unbaa annagana noo dambeynto walidaalika maanta alcaalam islaami maxaa ku soo badanaya waxaa ku soo badanaya tawxiidka oo daciifaya haddaanuba wada daciifinba waxaa ku soo batay shirkiyaadkii waxaa ku soo bartay shacwadadii ayaa ku soo batay maantana wax ii fiiri burjigayga hal la ogaado kan hal ii faaliyo kan marka labada qor hal isugu ka dhufto tusbax hal ii luxo koob qaxwa hal ii ruxo tiiba ku soo badatay maxaa soo batay zinadii baa badatay maxaa batay ribadii ila dadku wali xataa adilla la raasanay ribadii in la isay yani wadadii markuu nabiga uu leeyahay la tattabi'unna sanana man kana qablakum dadkii idinka horreeyay taakaad u raaci doontaan haddii xataa god abaysa ay galaan way ka daba geli doontaan markuu nabiga uu lahaa tii baan ku soconnaa wadadoodii baan ku soconnaa dacwo dayacan oo aan cid danaynaysa aanan jirin ilaa in yar aad moodid wadaad in contract u qoran inuu isagu ka shaqeeyo shacwadii oo dad ugu mashquulaan maantana wax la fiiriyo wax la faaliyo oo kaliya yani dadka fiqada xataa ka tagtay waxaan aad ugu mashquulsanna waxyaabaha mushacwadaadkan ku mashquulsanna diinkeenna wuxuu isugu soo ururay jinni iyo sixir iyo howlo unbuu isagu soo ururay dadku waxay ka tageen xaqaa'iqii bay ka tageen intaa marka waxaan moodaa wadadii yahuudda in la hayo halkaa marka darsigan ahamiyadiisu leeyahay inuu u gogol xaaro marka almadiinada munawara la tago horta dadka degan yahay kadib waxaan u bixi doonaa darsiga soo socda aws iyo khasraj ilaa huna wabillahi tawfiiq